السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب. هاي نيو adiga kulama jeedin salaanta. Few moments later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي عادي بني سلام ولا ليال كسود هذا برنامجكين وحب كريبتو ولكن محمد جامع إن شاء الله حلقة واحد كهذا دونا دعوين كيوجو عنا عالم كريبتو كارثية كدعي 2021 كي أنا كهذا دونا إن شاء الله ما أنت لكن انتينا بلابن واحد نقعد صلنا لايك يسبسكرايب شانك نوصارة سؤال نوع وسان إنه كونتنت كيجو قاعد ضد فربضن ولا لها في صومالي كواحد لا أبو صاحبه واحد وشيفته دين وكونكي وحبين وقهر سنين سبسكرايب كهبض يعني أصحابته. اوكي sida wada aragtaan walaalayaal 2021 wuxuu ahaa sanad aad cumladaha ugu wacan cryptocurrency-ga ah bitcoin oo soo taabatay saqafka $69,000 iyo coinka kale ku xiga ee la yiraahdo altcoins-ku ayaguna si waalan bay u sara kaceen altcoins-ka kuwii ugu muhiimsanaa waxa ka mid ahaa Cardano, Avax, Matic oo Polygon shirkadooda ah iyo coinka la yiraahdo Solana. arrinta kale ugu wacnayd ee cryptocurrency-ga sanadkii hore lagu arkay waxay ahayd maalqabeenka Elon Musk asagoo ku soo biiray cryptocurrency-ga markii shirkadiisu ay iibsatay $1.5 billion oo Bitcoin ah. ninka Elon Musk markuu suuqa ku soo biiray saraxatan dad badan baa farxay kadibna door bilood kadib ninkaasi isbedel weyn buu keenay maruu yiraahdo shirkadiisu Tesla Bitcoin kama isticmaalayso way joojinaysaa iyo mar kale uu waxyaabo kale ka sheego Bitcoin-ka taasoo khalkhal weyn suuqa yara gelisay kadibna cryptadii way ka soo laabatay khalkhalka oo all time high bay gaadhay oo sarkac weyn ay sii samaysay. sanadkan xitaa dawladihii baa soo galay cryptocurrency-ga sida dawladda El Salvador eego markaa iibsaday dhowr boqol oo xabadood Bitcoin ah oo mar walba suuq yara daatana sii iibsanayay oo urursanayay oo halka portfolio-hooda sare u kiciyay. dadka cryptada isticmaalana waxay gaareen tiro gaaraysa 300 milyan oo qof oo suuqa cryptada ku jirta. dhinaca kale haddaynu ka eegno waxaynu aragnaa lacagta guud ee cryptada ku jirta inay soo badatay iyaduna ay $3 trilyan soo taabatay. waxyaabaha kale ugu cajiibka badnaa ee 2021 kii dhacay caalamka cryptaha waxa ka mid ahaa waxa la yiraahdo play to earn taasoo shirkadaha alcaabta online lagu ciyaara fikrad cusub ay soo bandhigeen la yiraahdo play to earn ciyaar oo kasba lacag taasoo aad iyo aad u hirgashay sanadkan oo dad far badan maaragtay ay u soo galeen cryptada. shirkadaha kuwa ugu caansan ee hirgalay sanadkan waxa ka mid ah AXS, Decentraland iyo The Sandbox. waxyaabaha ugu cajiibsan ee caalamka cryptada ku soo biiray sanadkan 2021 waxa ka mid ahaa wax la yiraahdo NFT. fikradeedu waa very easy waxaad haysataa internetka dhigaysaa amba qaybta blockchain-ka kadibna mulkiyadii waxa adaa la wareegaya. mawduuca NFT hadday soo koobo wacaynka fikradeedu waa caynka sawiro aad iyo aad u far badan aad aragtaan imaka ayaa kumanaan kun oo dollar la kala siistay sanadka. mashaariicda ugu caansan NFT-dana waxa ka mid ah mashruuca la yiraahdo CryptoPunks iyo Crypto Ape Club. labada project saraxatan suuradahooda amba karatoonta ay soo dhigaan aad iyo aad bay u hirgaleen kuwaasoo imaka floor price-ka wax la yiraahdo amba lacagta ay suuqa imaka ku jirto la kala siisanayo ay gaarayso wax ku dhow $300,000. saraxatan NFT-du waa majaal aad iyo aad u cajiiba intaa maaragtay karatoonta iyo sawirada ay waxa bilaa macnaha ay ku jiraan anigu waan ka fogaanaya laakiin waa majaal aad iyo aad u wacan di dariiqad sax loo isticmaalo مثلا mulkiyadaha guryaha waxyaabaha de maaragtay caalamkan xaqiiqiga ka jira hadii loo wareejiyo dhawaan xitaa laga yaabaa in passportyadeena aan ku dhoofayno in NFT laga dhigo. marka NFT waa interesting world si wacan ula socdo insha Allah. qaybtan u dambaysa oo saraxatan indhaha caalamka u soo jiidatay bilahan u dambeeyay oo mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg uu ka hadlay oo xitaa magaca shirkadda uu u bedelay wad garanaysaa sheekadu xagga ku dambeynayso. طبعا waa metaverse waa caalam khayaali ah oo internetka ku dhex jira oo la doonayo dadku inay u guuraan taasoo imika shirkado badan ay systemkii iyo wax walba ay diyaarinayaan. shirkadahaasoo ka mid ah sidaynu sheegnay Facebook oo magaceeda Meta u bedeshay iyo shirkadda Microsoft iyo shirkado badan oo kale. fikradda metaverse waxa weeye muraayadad ku dhacaysa caalam khayaali ah ku noolaanaysa wax walba oo adduunkan aanad samayn karin ayaad metaverse ku samayn kartaa. fikrad wacan weeyaan wax wacan weeyaan laakiin Allahu a'lam waxa ka dambeeya iyo nimankan billionaires-ka ah waxay uga jeedaan amba uga dalneeyeen metaverse-ka. طبعا metaverse-ku khayr iyo sharna uu leeyahay tusaalihii aan ku soo qaatay NFT-do kale laga taxaduro oo si wacan insha Allah loo isticmaalo. qaybta ugu dambaysa aan ka hadlaynay insha Allah maanta waxa weeye web 3.0
صراحة أنا فكرة ويب 3 آد بي قنعسي آد بي عجبسي ووحوية إنترنت كمستقبل طبعا ميتافيرس وكجرة NFT دوي كجرتا play to earn way كجرتا ووحاسو دان أما فكرة كدن بيسا ويب 3 لوغو قوريو أو إنترنت كان عادي لغو قوريو إنترنت كان أين وقت حاضر كان أين استعماله وحالا هذا ويب 2.0 kii hore ee 90yadii la isticmaali jirayna waxa la yiraahdaa web 1 marka waxyaabaha ku kala duwan yihiin waxa weeye web 1 kii barigii hore la isticmaali jiray from 1994 ila 2005 internetkaas wuxuu ahaa shaashad aad daawanaysid oo aad wax ka akhri kartid aanu interaction aanu jirin oo wixii waxba ma cabiri kartid waxba ma qori kartid qofka wax ku soo diray waxba maaragtay lama share gareyn kartid sida imika YouTube kana diga daawanaysaan asxaabtiina la share gareyn kartaa bariga 94 kii ila 2005 kii arinta lama sameyn karin oo caalamka amba generationka hore ay internetka wuxuu ahaa web 1 web 2 baa loo soo guuray oo kadib shirkadaha Facebook Microsoft iyo Google iyo maaragtay YouTube ay soo baxeen arintaasoo revolution ahayd amba wax theory oo caalamka bedelay taasoo lagu soo kordhiyay waxa la yiraahdo social media oo dadkii ay interactionkii sameyn karaan oo ay wada sheekaysan karaan waxyaabaha cusub oo dhan Abta intaasoo kusoo gabagabeynaya insha Allah maanta qodobadii ugu muhiimsanaa aan ka hadlay intaasoo maleynay ugu muhiimsanayd waxyaabo fara badan oo 2021 kii dhacayna way jiraan oo daadan soo wada qaadan lahaa oo waqtigu aad iyo aad inoogu dheeran lahaa inta haddaynu ka gudubno waxaanu yara dul istaagaynaa xaalka BTC-da iyo suuqa siduu u socdo waxaynu aragnaa ayaamihii ugu dambeeyay suuqa in la soo dejiyay oo hoosta loo soo wado 2 week ka hor waxaa soo dhigay video falanqeyna oo exactly ereyooyinkan ay yidhi waa la soo taabanaya loo soo dhawaaday imaka kadibna insha Allah ereyada hadii in loo istaago suuqa dib loo celin karo hadii la jabiyana last hope-keena amba meesha ugu dambeysay inuu ka rajaynayno suuqa ka soo laabto inay noqon doonto 30,000 ilaa 28,000 ereyada u dhaxaysa